كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 156 qaybtii saddexaad ee ubadkaiyo internetka iyo casharadii aynu kaga warramaynay aadaabta internetka ee bishan ramadaan. waxaynu soo qaadanay aadaabta internetka 2 qodob oo ka mid a. maanta hal qodob baynu raacin doonaa. qodobkaas waxa weeye qofka looga baahan yahay inuu ilaaliyo, inuu markaa uu ogaado oo markaa waa maxay uu la socdo macnaha khatarta iyo halista iyo dhibaatada uu markaa internetku uu leeyahay, isla markaana waa maxay uu ka taxadiro oo waa maxay uu ka feejignaado oo iska ilaaliyo oo ka fogaado. marka waxyaabaha qofka muhimka ah oo ku ogaan karo dhibaatada uu leeyahay internetku casharo badan baan kaga soo warramay, laakiin si guud waxyaabaha qofku waa maxay uu la soconay waxaa ka mid a mar kastaba inuu ogaado qofka barnaamijta ama duruusta ama waxyaabaha diinta islaamka mar kasta waa maxay la dagaalamaya ama ka hor imanaya ama kasoo horjeeda, inuu qofka markasta waa maxay uu ku baraarugsanaado. iyo markasta in qofku ku baraarugsanaado akhlaaqdiisa iyo qiyamkiisa, sida waa maxay internetka marka uu u dilayo oo u baabi'inayo oo maalin kasta wax akhlaaqan wanaagsanayn uu qofku ula kulmayo. iyo sidoo kale inuu ogaado qofka macnaha mabaadi'da wanaagsan iyo qofka dhaqankiisii iyo habfikirkiisii iyo qofku siduu u socon lahaa haddii aan internetka waxyaabaha aanu waqti badan ku bixin lahayn, siduu wax badan uga fakeri lahaa qofku siduu hoos ugu dhigay internetku. iyo qofku waa maxay inuu ogaado dee internetka waa maxay inuu laba dhinacba uu leeyahay. dhinacna qofku waa maxay haddii uga faa'iidaysto khayrka waxyaabaha wax badan waa maxay ka faa'idi karo, laakiin inuu la socdo mar kastaba dee in cidda waxaan cidda waa maxay waxaan soo gelinaysaa, ciddan isticmaalaysaa, ciddan ugu badan ama maxay markaa jecel inay ku faafiyo maxay ay marka waxyaabaha waxan marka waa maxay ku faafinayaan, marka intaa la socdo. iyo qofku waa maxay marka inuu la socdo dee in waa maxay dadka cawrooyinkooda lagu faafinayo, dadka waa maxay lagu ceebeynayo, waxyaabahaas qofku waa maxay inuu markaa ku baraarugsanaado. sidoo kale marka inuu qofku ku baraarugsanaado mar kasta oo internetka inuu isticmaalo oo ay badato, inuu markaa bay-adii iyo qoyskiisii iyo dadkii markaa ku xeernaa ee u aag dhowaa inuu kaga fogaanayo. markaa taasina qofkii marka ay ku keenayso macnaha kelinimo iyo macnaha qofkii ay daal ku keenayso, qofka culays maskaxeed ay ku keenayso, ay markaa waa maxay inuu dee qoyskii midkii markaa waa maxay ka furfurma ay ku keenayso, ay noqoto isagii mobilkiisa. markaa khatarahaasoo qofku waa maxay inuu sidaa ula socdo. iyo sidoo kale markaa waa maxay inay dee cudurro halisa qofka ku keeni karto macnaha caqligiisa iyo jirkiisa iyo xifdigiisa, iyo markaa waa maxay waxyaabahaasoo dhan marka ay u keeni karto. aynu indhihii xataa kasoo warranaysa waxyaabaha u keeni karto halista. taasoo naha keenaya markaa macnaha qofku waxyaabaha uu dee mar kasta arkayo, especially gaar ahaan hadda innaga oo kale markaad maantuna aragtida maxay dad dee waa maxay ishaystaa, iscaayaya, isdagaalaya, macnaha fitna iyo waa maxay saa isku dhegan markaad aragtiduun macnaha qofka waa garaadkaaga korayay, maskaxdaadii kobcaysay, waxyaabihii la rabay inaad waa maxay aad ka korto ayuunba waa maxay intaa kusoo ekaanayo. marka waa maxay adigana dhaawac culus bay kuu geysanaysaa. haddaba qofku dhibaatada siduu uga fogaado haddii isagu uu iska ilaaliyo, sidaa iskaga ilaaliyo, qofka haddaba isagu raba inuu dadkii dhibaato lasoo doonto oo internetkii qofka ka fakerayay inuu dadkii dhibaateeyo ama waxyaabaha hadda aan ka sheekeynay oo dhan dadkii uu usoo gudbiyo, waxyaabahaasoo dhan markaa isagoo nebigu ka warramaya ayaa nebigu wuxuu xadiiska Abu Hurayra warinaya, almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi. qof muslim haddaad tahay, dadka muslimiinta ah ama si physical ah markii muuqaal ahaan ay ku ag joogaan iyo marka aanay aydan wada joogin internetka ku wada xiriiraysaan, carabkaaga iyo gacmahaaga wax ka ammaan helaan. waa maxay carabka iyo waa maxay iyo waa maxay gacmahaba qofku khaladka iyo gefka uu ka galo ayaa aada u degdeg badan, oo markaba qofku carabka been buu ka sheegi karaa, waxbuu ka caayi karaa, gacantana marka qofku waa maxay waxbuu qof kale ka gaarsiin karaa, waxbuu qof kale maxay ku dhufan karaa, waxbuu qof waa maxay ka xadi karaa.
ama maxay labada marka waa maxay action qofku uu qaadi karo aad buu u fudud yihiin marka nabigu wuxuu lahaa marka hore waa maxay labadaa waa maxay marka dadku ka ammaan helaan muslimku waa kaa buu yidhi wixii walmu'minu man aaminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim wixii qofka mu'minka ahina waa ka ay dadku aamin uga noqdaan yacni xoolahooda iyo dhiigoodaba marka waa ka waa maxay dadka aan waa maxay mu'minka xaqiiqiga ah saxda waa maxay waa kaa marka waxay dadku ay ka ammaan helaan qof dadka maxay nafahooda waxba aan u gaarsiinin dadka maxay xoolahooda waxba aan u gaarsiinin qofka dadka dhiigooda waxba aan u gaarsiinin marka haddii aad social media isticmaalaysid dadku carabkaaga ha ka ammaan helaan dadku waa maxay gacmahaaga ha ka ammaan helaan dadku waa maxay sidoo kale waa maxay dee xoolahooda ama waxyaabaha ay haystaan ama sharaftooda ama cirdigooda ama waxyaabaha ay dee internetka ay ku dhex jiraan adiga waa maxay waxba waa maxay dhibaato ah hawla tegin ama markaa waa maxay ha u geysanin marka intaas waxay ka mid tahay dhibaatooyinka internet waa maxay khatarta qofka internet ku leeyahay qofku mar kastaba qofku saa ugu baraarugsanaado oo qofku aanu noqon qof macnaha waa maxay meel badweyn iskaga dhex jira oo badweynta iska dhex qaada oo aan garanayn aan kala saari karayn dadkan wax soo gudbinaya keebaa diintaada dhaawacaya keebaa caqligaaga dhaawacaya keebaa waa maxay markaa waa maxay indhahaaga wax u geysanaya keebaa markaa waa maxay dhaqankaaga iyo culturekaaga hoos u dhigaya macnaha keebaa akhlaaqdaada dhaawacaya keebaa sababaya markaa waa maxay inaad waa maxay waxyaaba badan oo maxay khalada marka aad la timaadid waa inuu qofku waa maxay saa wax u kala saari karo marka ayaa loo baahan yahay marka taasina waa aadad markaa saddexaad taasina ku hesheena maanta wallahu subxaanahu watacaala aclaa wa aclam